kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibadan ku saaxiibnay janaalkeena ee gundhiga wararka habeen wanaagsan meel kasta oo dunida ka joogtaan waa 25ka bisha 7 2019 habeen wanaagsan meel kasta saaxiibada naga daawanaysa dunida inteeda kala aad ku sugantiin caawana qodobada wararkeena ugu waaweyn ee janaalkeena idin soo bandhigi doonana waxa kamid ah xaaladda gudoomiyaha gobolka Banaadir oo markan laga deerinayo iyo duqa caasimadda Muqdisho diyaarad qaas ah galabta lagu qaaday lana geeyay dalkaasi Qatar halkaas lagu dabeynayo warbixin ku saabsan xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo diyaarad qaas oo maanta Muqdisho ka qaaday lana geeyay dalkaasi Qatar warbixin ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa waxa kale oo daawada idin soo gudbin doonaa yaa mas'uul ka ah qarxi ka dhacay xarunta gobolka Banaadir sidee haweeneyda isqarxisay ku gashay xarunta gobolka Banaadir yaa safuuday arintaasi warbixin ku saabsan ibaaris janaalkeena uu sameeyay iyo macluumaad dhameystiran ayaa idin soo gudbin doonaa waxa kale oo daawadayaal idin soo gudbin doonaa taariikhda mas'uuliyiinta ku dhimatay qarxi ka dhacay gobolka Banaadir shakhsiyaadka ku dhintay taariikhdooda kooban ee eegi doonaa sarkaal oo hadlay maamulka gobolka Banaadir waxa uu sharaxaad dheer ka bixiyay wixii shalay galab ka dhacay aqalka dawladda hoose xamar iyo waliba sida haweeneyda isqarxisay ay ku timid xafiiska duqa magaalada Muqdisho waxa kale oo idin soo gudbin doonaa isla janaalkeena gundhiga wararka ayaa 2 maalin ka hor waxa uu halkan ku soo bandhigay in magaalada caasimadda Muqdisho ay soo gashay haweeney isqarxisay oo haweeney isqarxin rabta ugu dambeyn isku qarxisay aqalka dawladda hoose xamar hordhaca warbixino badan ibaaris la sameeyay in natiijo ka soo baxday weerarkii ka dhacay iyo maanta oo aas qaran magaalada Muqdisho loogu sameeyay mas'uuliyiintii ku dhimatay weerarkii shalay imise dumar iyo al-shabaab u adeegsadaan weerarada ismiidaaminta ah ay ka geysanayeen gudaha Soomaaliya warbixino gaar ah ku eegnaa dhaqdhaqaaqyada al-shabaab iyo hablaha ay adeegsadaan maamulka Jubbaland waxa ay sheegeen in xiriirkii ay u jireen dawladda Soomaaliya sidoo kale ay deegaanadaas ay ka mamnuuceen in magaalada ay soo gaaraan wax kamid ah xubno ka tirsan mas'uuliyiinta dawladda qaar kamid ah wasiirada Soomaaliya baqdan ayaa soo wajaday inay leeyahay u diyaar garoob qodobada kuba kale inaad wararkeena caawaad ku daawataan dad ku cusubta channelkan subscribe dhe qaybta hoose ee comment-ga lagula wadaag aragtidaada si aan halkan ugu wada xiriirno oo idin soo bandhigno macluumaad walba oo ku saabsan waxa ka jira Soomaaliya waxaan eegi doonaa xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo waliba diyaarad qaas ah oo daqado waa galabta lagu qaaday loona geeyay dalkaas Qatar sarkaal nala hadlay oo liirado afayeenka gobolka Banaadir Salax Dheere ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda uu ku sugan yahay caafimaad ee gudoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho Injineer Yarisow oo ku dhaawacmay weerarkii shalay ka dhacay caasimadda gaar ahaan aqalka dawladda hoose waliba xafiiskiisa qarax uu ka dhacay Salax Dheere ayaa qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay xaaladda caafimaad ee duqa Muqdisho Injineer Yarisow ay tahay mid aad u soo hagaagaysa qoraalka uu soo dhigay waxa uu yiri shacabka Soomaaliyeed saamaha waa wanaagay samaha jecelba waxaan ka codsanaynaa inay isdejiyaan isla markaana ay duco la garb istaagaan duqa caasimadda Muqdisho waxa uu sheegay in xaaladiisu ay tahay mid aad u wanaagsan gudoomiye Yarisow iyo qaar kale oo kamid ah mas'uuliyiinta shalay ku dhaawacmay ayaa isla maanta diyaarad ka qaaday magaalada caasimadda ee Muqdisho garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho aadan cadde ayaa waxa ka dhashay diyaarad ambulance ah oo lagu qaaday dhaawaca gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho xubno kale oo dawladda hoose ka tirsan diyaaradan oo ka soo duushay dalkaasi Qatar ayaa qaaday dhaawaca culus ee dadka shalay ku dhaawacmay qarxi ka dhacay xarunta gobolka Banaadir waxaana dhaawacyada la qaaday ku jira gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo waliba gudoomiyaha degmada Warta Nabadda gabadha la yiraahdo Saynab Xaadi dhaawacan oo goor dhow dibadda loo qaaday ayaa ahaa kuwii ugu cuslaa waxaana la sheegay in wax badan laga qaban waayay gudaha isbitaalka Digfaar oo shalay galab ilaa xalay ay jiifeen waxaana la filayaa mas'uuliyiintan isbitaalka wali waxa la filayaa xubno kale oo maamulka gobolka ka tirsan isbitaalka Digfaar ku jira ayna in loo qaado dalka dibadiisa gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Yarisow ayaa dhaawac culus waxa uu ka soo gaaray madaxa iyo caloosha waxaana xalay lagu sameeyay 2 qaliin oo la sheegay in ay ku guuleysan dhaqaatiirta walow qaliin kale saddexaad uu jiray kaas oo keenay ilaa lagu guuleysan xaaladiisa caafimaadna si adkaysan xukuumadda Soomaaliya ayaa guddi u saartay sidii wax looga qaban lahaa isbitaalada dibadda ah ee lagu qaadi lahaa mas'uuliyiinta iyo waliba dadka kale ee dhaawacyada ka soo gaareen qarxi shalay galab ka dhacay xarunta gobolka Banaadir
gudoomiyaha gobolka banaadir iyo waliba gudoomiyaha degmada warta nabadda ayaa ilaa hadda la xaqiijiyay dadka caafimaadka dalka dibadiisa looga qaaday halkana lagu dabay doono. waxaa kaloo la sheegay dadka inay jiraan shakhsiyaad kale oo dhaawacyo culus qaba oo ayna la qaadi doono. haddaba dhinaca kale waxaan eegi doonaa taariikhda xubnihii dhintay iyo waliba yaa fududeeyey ama yaa u sahlay in haweeney walxaha qarxa ku xiran ay gudaha gasho ee halka ay isku qarxiso. haddaba warbixinta ayada si gaar haddaan u istaagno, warar soo baxay waxa ay sheegayaan in haweeney ay fulisay weerarkii ismiidaaminta ah ee shalay lagu qaaday xarunta maamulka dowladda hoose ee banaadir. saraakiisha booliiska ayaa waxaa laga soo xigtay in qofka qarxay ama qarxa fuliyay ay ahayd haweeney la socotay gabar indhoolo ah oo maamulka gobolka banaadir u qaabilsaneeda arrimaha dadka baahiyaha gaarka qaba, iyadoo isku muujinaysay in ay kaalmeynayso haweeneyda indhoolada ah ayaa waxa ay gudaha u gashay hoolka shirka. haweeneydan indhoolaha ah oo gobolka banaadir u qaabilsan arrimaha baahiyaha gaarka qaba ayaa dhowaan xilkaasi waxa uu magacaabay gudoomiyaha gobolka banaadir marka uu ka timi soo jeedin ku-xigeenadiisa. dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga ee caasimada maxamed tuulax oo asna shalay aan tagin shirkii amniga ee la qarxiyay ayaa sheegaya in haweeneyda la tuhunsan yahay in loo fududeeyey ayna gashay xarunta maamulka gobolka banaadir halkaas oo shirka uu ka soconaya. waxa uu sheegay Mr. Tuulax in ilaa hadda ay soconayso baaris ku aadan sida ay ku suurto gashay in haweeney walxaha qarxa xiran ay gudaha u gasho xarunta. qaraxii shalay ka dhacay xarunta maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa ku dhintay gudoomiyaha degmada Shangaani Zahra Maxamed Amiin, abukaati xasan maxamed sabri oo ahaa la taliyaha gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo agaasimihii qorsheynta ee dowladda hoose injineer shuriye iyo waliba agaasimaha nadaafadda cabdifataax cumar xalale iyo agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha cabdilaahi dheere iyo waliba gudoomiyaha degmada waabari mahad cilmi iyo gudoomiyihii degmada cabdilcasiis haweeneyda la yiraahdo sabax cabdilaahi maxamed oo ah dadka halkaasi ku dhintay. haddaba ilaa hadda waxaa la sheegay xog hordhaca janaalkeena oo helena xaqiijinaya in waxa ka dhacay gudaha xarunta ay ahayd qof haweeney ah oo waxyaabaha qarxa lagu soo xiray oo halkaa isku qarxisay sida ilaha muhiimka ah hadda ay sheegayaan oo aan kasoo xiganay. haddaba dhinaca kale isla wararka qarxiyada ayaan ku guli jirnay ee ka dhacay iyo waliba mas-uuliyiintii waxyaabaha ama waxyeelada kasoo gaartay qarxii shalayto. waxaan markaan eegi doonaa taariikhda mas-uuliyiinta ku dhimatay qarxii shalay iyo waliba waxay kala ahayeen. mahad cilmi cali waa gudoomiyaha degmada waabari, sidoo kale waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada ugu firfircoonaa ee horey usoo wada shaqeeyeen ama horey usoo noqdaba xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug oo muddo ka mid ah baarlamaanka xildhibaanada ka mid ahaa. waxa uu ka mid ahaa dadkii kasoo shaqeeyey maamulkii xibin iyo xeeb ee ka dhisna galmudug ugu dambeynna ku biiray galmudugta marka la dhisay. bishii julaay isla sanadkii 2018 ayaa loo magacaabay xilka gudoomiyaha degmada waabari mahad oo hadda ku geeriyooday qarxii shalay. shakhsiga labaad cabdifataax cumar xalale waxa uu ahaa agaasimihii nadaafadda gobolka banaadir. waxa uu sidoo kale uu soo noqday saxafi, waxa uuna agaasimo ka noqday idaacadda afka gobolka banaadir ku hadasha. sidoo kale waxa uu hore agaasimo ka soo noqday idaacadaha Gool FM iyo Radio Mustaqbal oo ah idaacado ku yaala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. xalane waxa uu sidoo kale uu soo noqday agaasimaha warfaafinta gobolka banaadir iyo afayeenka maamulka gobolka banaadir ka hor inta aan loo magacaabin agaasimaha howlaha guud ee gobolka. isla bishii June waa bishii July ayaa cabdifataax cumar xalane waxa loo magacaabay agaasimaha waaxda nadaafadda ee gobolka. xalane ayaa haysa shahaadada koowaad ee jaamacadda Simad ee maamulka, wuxuuna ahaa dhalinyaro aad u firfircoon kana soo shaqeeyana waxyaabo badan oo arrimaha warbaahinta u badnaa uu ka soo shaqeeyay 5 sano ee ugu dambeysay. cabdifataax cumar xalale waxa uu ahaa agaasimaha nadaafadda iyo waliba xilal kala duwan ayuu ka soo qabtay. dhinaca kale aan eego isla gudoomiyaha degmada cabdilcasiis gabadha la yiraahdo sabax cabdilaahi asad waxay ka mid ahayd dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka soo noqotay qurba joogta. waxaana bishii Abriil ee sanadka loo magacaabay gudoomiyaha degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir. inkasta uu ku cusub yahay xafiiska haddana waxa ay ahayd gabar firfircoon oo waqti badan geliso horumarka degmada iyo waliba sidii bilicda degmadaas ay soo saari lahayd. allah u naxariiso sabax waxa ay ka mid noqotay mas-uuliyiintii ku dhimatay qarxii shalay ka dhacay xarunta aqalka hoose.
xasan maxamed sabri waxa uu ahaa la taliyaha dhinaca sharciga ah ee gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu sidoo kale ahaa sharci yaqaan qabiir dheeri ah ama qabiir ku ah arrimaha sharciga ee la soo shaqeeyay gudoomiyaal badan oo soo maray gobolka banaadir waxa uu ka soo shaqeeyay dowladda dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan dowladda hoose ee Xamar waxaana inta badan xilal ka soo qabtay dowladihii ugu dambeeyay xasan maxamed sabri waxa uu ahaa 70 sano jir waxa uu ku geeriyooday qarax shalay ka dhacay aqalka dowladda hoose waa kuwa dadka halka ku dhintay warbixinadooda iyo taariikhdooda kooban aan eegayni markan waxa kaloo markan haddii intaa kaga gudubna weerarkii iyo qarxidii shalay ka dhacay caasimadda wixii kaloo isla macluumaadii ay ka soo kordha xaaladda gudoomiyaha gobolka banaadir oo marka loo qaaday isbitaal ku yaala dalkaasi qadar iyo waliba wixii kaloo warbixinaha ku soo kordha isla janaalkan ayaa daawadaan in kugu soo gudbin doona wax walba oo macluumaadii ku saabsan xaaladda muqdisho warbixinta kale ee wararkan ku jireen waxaa kamid ah Jubbaland waxay xiriirka u jirtay dowladda Soomaaliya isla markaana deegaanadeeda ka mamnuucday madaxda dowladda Soomaaliya inay yimaadaan ama halka ay soo gaaraan maamulka Jubbaland waxay ku dhawaaqeen in xiriirka u jireen dowladda federaalka Soomaaliya xilli ay sare u sii kiciso xiisadda u dhaxaysa labada dhinac ee dowladda Soomaaliya iyo maamulkaasi golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay in la hakiyo wada shaqeynta iyo isku socodka xukuumadda federaalka iyo Jubbaland golaha ayaa go'aankan u sababeeyay faragelin qaawan oo ay dowladda federaalka ku hayso xanaanka doorashada Jubbaland iyo qalqalgelin joogto ah arrimaha nabadgelyada Jubbaland sida lagu xusay mas'uuliyiinta dowladda federaalka ayaa sidoo kale laga mamnuucay in deegaanada Jubbaland ay yimaadaan golaha wasiirada ayaa dhammaanba shacabka Jubbaland ugu baaqay midnimo ay adkeynta isla markaana ay meel kaga soo wada jeestaan cid walba oo daneynaysa dhibaatada ama cid walba oo daneynaysa horumarka iyo waliba nabadgelyada go'aankan ayaa yimid maalin kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay soo saartay qoraal ay ku sheegtay in liiska odayaasha soo xulaya xildhibaanada Jubbaland ay soo saareen uu yahay mid sax ah ayna ka soo horjeesan midka ay soo saareen maamulka Jubbaland qoraalka ka soo baxay sidoo kale waxa lagu sheegay inuu soo jirin musharax isdiiwaangelin kara inta laga soo xulayo xildhibaanada maamulka taas oo ku socota Axmed Madoobe oo hore isku diiwaangeliyay gudaana warbixintaas ayaa ugu dambeysay warkiini haweenimo caawaad ka daawanaysan channelkan ee gudniga wararka daawada halkaas aan ku soo gabagabeynaa wararka iyo waliba macluumaadyo ugu waaweyn ee Soomaaliya daawada haddaad ku cusubtaa channelkan subscribe qaybta hoose comment-ga igula wadaag aragtida like share garay oo la wadaag saaxiibadaada si u helaan xogta iyo macluumaadyo gaarka aan soo bandhigno wararkiina caawa wanaageentas